السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالوافات كفوش حمنا السيجادة حدي أفرتن استيجاد كساميسو وأفرت وجو حليست بدن وجو خطرت بدن داوع وجو إن شركة أيو كيسانيسو مرحلة كوبان ومرحلة أتكوشرت حالة عافية حدي أتكوشرت حالة عافية وأيدا وينكو صعوتو وأد حنون الله نوشهاي وأد سيغيستو وحاد خطرو قري كرتا سيغداسي دباتا عافيماد مركز أدونيسي إن الحليدو أما أدكبكستو إن المركز لحلين كريواي تصاليهان هدي أدقبتو حنون كتيبيدا ودواديسي أيكو صعوتو وحلقي داوينتا لغو قودا جيرو وأد سيغيستو وحا حنون كاسرين كابكسدو وي أدقتاي إن قنانتكي يدودا وحتركيدي لهلانا وي أدقتاي أديقو إن العافيمادنا وي أدقتاي إن لغو قوليستو داوينتنا وي أدقتاي marka xaaladaha caafimaad ee noocaas oo kala qofku hadii uu ku siigaysto waxaad khatar ugu jirtaa inaad marka dhibaatada noocaas aad difaro garayso sidoo kale xaaladda xilligan marka lagu guda jiro dhaqaatiirtu waxa kale ay uga digaan ninku inuu galmo sameeyo oo xadda xaaskiisa inaad galmo la sameeyo hadii xanuunka TB-da laga daweynayo inta xanuunka uu recovery fiican ka qaadanayo ama uu ka bogsanayo ee dawadu ay u dhamaanayso inaanu galmo sameyn ayaa lagu la taliyaa oo xaaskiisa uu ka fogaado ayaa lagu la taliyaa marxaladda kale ee iyaduna halista ah ee hadii aad siigaysato ay dhibaatada ku gaarsiinaysa ay khatar badan tahay waxiliga aad ku jirto nafaqo darrada baxsan hadii jirkaagu uu bilaa nafaqo yahay ama faytamiinadaadu ay kala dhantaalan yihiin oo aanad cunto fiican isticmaalin oo aad siigaysato dhibaatadii ay ku gaysanaysay siigadu mid laban laaba oo saddex laaba ayay ku sii geysan doontaa maadaama xilliga aad ku siigaysatay ay tahay xilli aad jirkaaga nafaqooyinkiisu ay kala dhantaanlaayeen ama ay kala dhinaayeen ama nafaqooyin aad u baahnayd jirkaaga ay ka maqnaayeen haddii xaaladda aad ku siigaysatana siigadu dhibtii ay lahayd mid ka daran baa kugu iman doonta marxaladda saddexaad ee haddii aad ku siigaysato siigada dhibaatadeedii ay sii kordhayso waa marxaladdan aad siigada xidhiidhiso adigoo imika siigaystay haddana ku celiya ee si markaa constantly ama si joogto ah u sameeya siigada oo aan waxba u kala dhaxaysiina si xidhiidha u sameeya khatartii siigadu ay lahayd markeeda horeba mid ka daran ayay ku geysanaysaa siigada sida joogtada aad u sameynayso ama aad isku xigxigsiinayso ee sanka aad isku saarayso ee sida xidhiidhka aad u sameynayso waa siigada ugu halista badan ama waa ta ugu khatarta badan waxyeelada ay ku geysanaysaana waa ta ugu badan iyo dhibaatada jirkaaga ay gaarsiinayso dhibaatooyinkii faraha badnaa ee siigadu jirka ay u geysan jirtay ayaa waxay tahay inay sii badan doonaan ama kuwa ugu faraha badan ee kugu dhacay inay ku iman karto siigada la xidhiidhiyo arinta afraad ee hadii aad siigaysato siigadu dhibtii ay lahayd mid ka daran ay kugu sameyn karto waa gaajada adiga oo gaajoonaya ama xilliyada aad xilligii gaajada ku jirto ee ama hurdo aad ka soo kacday intaad habeenkii markaas subaxii hurdo aad ka kacday ama aad si galaba u gaajoonayso oo calooshaadu ay si saayida u marantay ama waqti dheer baad gaajoonaysay haddii aad siiga aad samayso oo aad ku rogaal celiso oo siigadii sida aad siiga culus aad ku samayso iyana khatartii ka dhalanaysay siigada mid labanlaaba oo dhamala ayaa ka dhalanaysa waa afarta xilli ee siigada qofku haddii uu sameeyo ama afarta maraaxil ee dadku siigada haddii ay sameeyaan dhibaatada caafimaad ee siigada laga qoraa ay isdhamalgarayso ama ay islaman laabto
ama ay dhibaatada ugu weyn qofka ay u sii geysan karto ama dhaawaca ugu weyn ay u geysan karto intaasaan ku soo ururinayaa farxad iyo caafimaad taamaan idin rajaynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.